We are going to Karora first, guys. Let's go. The Uber is downstairs. We are Carlo. बस किलो होगा लवेंदर वा السلام عليكم guys. soo dhawaada maanta waxaa soo aadnay Karora Forest oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. maanta waa Sunday oo jimcadooda marka bike-na sameynayna activity badan ee leedahay oo lagu dhex sameeyo Karora Forest. soo anaga waxaan go'aansanayna bike sameyno in keena Karora Forest ayaan ku soo wareejin doonaa idinna tusi doonaa asxaab badan aan ay video ku arki doontaa. Karora Forest waxaa hadda soo soconay 3 kilomitir iyo bar. waxaa hadda ku sii soconaa waterfall-ka iyo cave-ka waxay inoo jirtaa 2 kilomitir iyadana insha Allah markaan tagno waa in tusin doonaa waterfall-ka iyo cave-ka. hala socdo guys. guys finally ugu dambeyn waxaan soo gaarnay waterfall-kii oo ku yaalay Karora Forest. waxaan soo jarnay 15 kilomitir waa masaafo aad u dheer waa halkaan ka arki kartiin. so waterfall-ka biyahan ag joole waa wasaqar laguma dabaalan karo lama cabi karo halkana looma isticmaali karo. ka arkiin waxaa halkaas ku dhigan saynis udigay inay biyaha nafsi ku dabaalado. marka aniga waa wallahi waan yid jaw waxaan sidaa waterfall-ka adag daalnaatay oo ku dabaalanay biyo aan la biyo wasaq. guys wala socdo.
شنطة إيمان صوبه نلوينه أدبل كلتور دبش يا بكلتورتي ورجوجة ناحية نفتين وحين وحكونا أنا واصلت وكنا دبتي روتي وصوقتي وحيلي وعني أنا باي هايني وياه أبن دبتي روتي وصلت ما حد عين دبل كلتورتي أحنا كلمة